وسلامتين أصحابتك kusoo dhawaada barnaamijkeena on target aynu ku falanqeyno kulamada ugu waaweyn ee la ciyaaray toddobaadka horyaalada ugu waaweyn qaaradda Yurub waxaan muuqaalkan ku eegi doonaa kulanka ugu muhiimsanaa toddobaadkan horyaalka Ingiriiska ee Premier League kulankaas oo ay foodo isku dareen kooxaha Manchester United iyo Arsenal kulankan ayaa waxa uu ka dhacay garoonka kooxda Manchester United ee Old Trafford haddaba waxa uu ahaa kulankan mid aad u muhiim ah haddii ay noqoto dhinaca dhibcaha iyo haddii ay noqoto dhinaca taariikhdaba waxaanu wax yar ka eegi doonaa ama aynu falanqeyn doonaa kulanka ka hor intaynaan u gudagelin qaab ciyaareedkii labada kooxood oo kulankan waxa uu ahaa ama waxa uu ka mid yahay kulamada ugu adag ee la ciyaaro horyaalka Ingiriiska ee Premier League marka ay iska hor imanayaan kooxaha Manchester United iyo Arsenal oo kooxda Manchester United ayaan awoodin inay ka badiso kooxda Arsenal sideedii kulan ee ugu dambeeyay hal kulan mooyaane kooxda Manchester United sideedii kulan ee ugu dambeeyay ay la ciyaartay horyaalka Ingiriiska kooxda Arsenal waxay awoodeen inay badiso hal kulankaas oo ahaa kulankii ay xilli ciyaareedka hore garoonka Old Trafford kaga badisay 3-2 haddaba kooxda Manchester United ayaa awooday mar kale inay ka badiso kooxda Arsenal iyadoo aan kulamadii ugu dambeeyay aan badiska ay lahayd kooxda Arsenal sidoo kale kooxda Arsenal ayaa iyaguna hal gool ka gaadhay kooxda Manchester United marka ay la ciyaareen horyaalka Ingiriiska ee Premier League gaar ahaan marka lagu ciyaaray garoonka kooxda Manchester United ee Old Trafford oo 15 kulan ee ugu dambeeyay ee labada kooxood horyaalka ku ciyaaran garoonka Old Trafford kooxda Arsenal waxay ku guuleysatay inay badiso hal kulan oo kaliya haddaba haddii aynu gudagalno qaab ciyaareedkii labada kooxood كل كوحدة أرسنال ما دام هاد كوحدة كلية هوريال كإنجليز كحل عيارات كان أودي إنه بديسو شنتي كلن عيارتي وشنتي كلن بكوحدة وحي سوق على 9 دبعات أو وحي هاد 8 دبعات أي هالشيء أو وحل السوقي كوحدة أرسنال ما دام إلى عيارتي كوحة عادي أما كوحة هذا وحل السوقي مرول أو أي كوحدة أرسنال بديسو إنه إلى عيارتي كوحوين أو مركي كوحدة كبديسو كوح وحلوراني كوحدة مانشستر يونايتد أي أوجو صوريسو كوحة وين مركز أينو إيجي تونا كوحدة مانشستر يونايتد أما كوحدة أرسنال سدا ويهي أما هير كده أما وديو إنتلكت هاي haddaba kooxda Arsenal ayaa ku guul dareysatay inay badiso kulankeeda ugu horeeyay ay la ciyaarto koox weyn inkastoo ay kooxda Arsenal soo bandhigtay kulan aad u fiican dhinaca kale kooxda Manchester United kadib markii labadii kulan ee ugu horeeyay laga badiyo horyaalka Ingiriiska ay ka kala badiyeen kooxda Brighton iyo Brentford kooxda Manchester United waxa ku yimaaday isbedel ah dhinaca shaxda dhinaca qaab ciyaareedka kooxda iyo dagaalanka ruuxa kooxda oo kooxda Manchester United kadib markii laga badiyo kulanka Brentford waxa kooxdu awooday inay gaadhay 4 kulan oo isku xigayna badiso xidhiidh ah oo ay ku jiraan kooxaha Arsenal iyo Liverpool oo kooxda Manchester United kadib markii ay ka badiso kooxda Brentford waxay awooday inay gaadho 4 kulan oo xidhiidh oo badis ah oo waliba iyadoo ay ku jiraan kooxaha Liverpool oo kamid ah kooxaha ugu awoodda waaweyn iyo Arsenal oo ah kooxda hadda ugu horsareysa ama hogaaminaysa horyaalka Ingiriiska ee Premier League haddaba haddii aynu gudagalno qaab ciyaareedkii labada kooxood kooxda Arsenal waxa ay ciyaaraysay kulan aad u fiican oo kooxda Arsenal qaybta hore ama kulanka bilowgiisii 15 daqiiqo ugu horeeyay tababare Mikel Arteta waxa uu ku ciyaariyay inuu ku ciyaaro daafac dib u baxsan inta kadibna uu counter-attack ku ciyaaro oo haddaynu eegno xaalad kamid ah xaaladihii kulanka 15 daqiiqo ugu horeeyay kooxda Arsenal markii ay ku ciyaaraysay difaaca dib u dhigsan ama gool hortiisa ah kadibna counter-attack oo waxa ka yimaaday gool ay dhalisay kooxda Arsenal sidoo kale goolka khadka dhexeynay kubadda ka qaataan oo markiiba goolaha kala gaadhan haddaba sida sawirkan ka muuqata daqiiqadu waa daqiiqadii 10aad kubadda waxa haysta ciyaartooygan hoose kooxda Manchester United ee Rafael Varane haddaba waxa jira laba line oo sawirkan ku yaala labada line inta u dhaxaysa ayay ahayd intii ay ka daafacanayso kooxda Arsenal oo kooxda Arsenal 15 daqiiqo ugu horeeyay kulanka waxay ka daafacanayeen 18 ama xirada ganaaxa inta u dhaxaysa iyo khadka dhexe 35 mitir ee u dhaxeeyay ka daafacanayeen sida ka muuqata sawirkan inta kadibna kooxda Arsenal waxay ku ciyaarayeen weerarka sidoo kale kooxda Arsenal dhibkii ugu weynaa ee haystay kulankan ayaa ahaa inay dhibku ka jiray dhuunta garoonka ama khad ama dhexda ama lambar 9ka oo kooxda Arsenal mar walba kubadda ay ka galinaysay garbaha ama ay ka soo wareertay mise garbaha haddaba waynu sharixi doonaa oo waynu wada arki doonaa waxyaabihii ka khaldanaa kooxda Arsenal gaar ahaan waxyaabihii kooxda Arsenal ka khaldanaa lambar 9keeda ama inay khadka dhexe ama dhexda dhuunta garoonka inay ka weerarto kooxda Manchester United dhinaca kale kooxda Manchester United ayaa iyaduna mararka qaar waxay ku soo gashay bilowgii inay kubadda haysato maadaama ay kooxdu ka soo baxday guul sidoo kale ay ku ciyaarayso garoonkeeda Old Trafford Manchester United waxay ku soo gashay garoonka inay kubadda qabsato oo 20 daqiiqo ugu horeeyay kubadda kooxda Manchester United ayaa haysatay sidoo kale kooxda Manchester United ayaa fiicneed inta kadib kooxda Arsenal ayaa gool leliyay oo goolkii ciyaartooyga Odegaard uu kala booday ciyaartooyga Eriksen inkastoo foul la dhigay goolka kadib markay dhalisay kooxda Arsenal waxa gashay kalsooni oo kooxda Arsenal iyaguna garoonka ayaa kulanka ayay soo galeen oo kalsooni bay qaateen inta kadib waxay noqotay in kooxda Arsenal si toos ah kulanka u soo gasho oo ay awoodo inay fursado badan abuurto oo badbaadiyo goolwada David De Gea dhinaca kale kooxda Manchester United iyaguna waxa ay ku ciyaarayeen mararka qaar ama 15 daqiiqo ugu horeeyay inay kubadda haystaan inta kadibna ay barashar ama cadaadis sameeyaan
oo xaalad ka mid ah xaaladihii cadaadiska ama barasharka ay sameynayso kooxda Manchester United sida hadda ka muuqata sawirkan daqiiqadu waa daqiiqadii 15aad kubadda waxaa haystay goolwadaha kooxda Arsenal ee Ramsdale halka ay 5 ciyaartoy ee goobada cas ku jirto ay yihiin ciyaartoyda kooxda Manchester United kuwaas oo sameynaya barasharka ama cadaadiska haddaba tababare Mikel Arteta muxuu kaga hor yimaaday arrinkaas oo kooxda Manchester United marka ay ku soo ciyaarto ama marka ay soo qaado barasharka ama cadaadiska ee ay u soo dhawaato xirada daafaca kooxda Arsenal waxa uu sameynayay tababare Mikel Arteta inuu ku ciyaaro kubadda dhaadheer goolwadaha kooxda Arsenal ee Ramsdale kubadda marka uu qabsado waxa uu tuurayay kubad dheer ama long ball ayuu tuurayay taas oo ay ka yimaadeen fursado inkastoo ay badankeeda qabsanayeen daafacyada kooxda Manchester United sidoo kale intaa kadib kooxda Manchester United waxa ay sameynaysaa mararka qaar inay khadka dhexe ama dib u soo degto oo ay barasharka ka bilowdo oo khadka dhexe ka bilowdo oo aanay hore ugu qaadin barasharka daafacyada kooxda Arsenal oo markii kubadda khadka dhexe ka qaadan markiiba ay hore u gaarsiiyeen weerarka isla xaalad ka mid ah xaaladihii kale ay kooxda Manchester United barasharka qaadaysay ayaa sida sawirkan ka muuqata daqiiqadu waa daqiiqadii 19aad kubadda waxaa haysta goolwadaha kooxda Arsenal ee Ramsdale halka ay kooxda Manchester United 5 ciyaartoy ee goobada jaalada ama huruudda ay ku jiraan ay yihiin kuwii barasharka u qaadayay oo ciyaartoyga McTominay ayaa isagu mar walba ka qayb qaadanayay barasharka halka ciyaartoyga isagu Eriksen uu sameeyay isku dheelitirnaan ah khadka dhexe iyo khadka daafaca si aan u imaan dheelitirnaan oo ay ka faa'iideysto kooxda Arsenal ciyaartoyga Eriksen mar walba hoos ayuu soo degay ama dib ayuu degay oo waxa uu ka dhawaa ciyaartoyga Jesus iyo ciyaartoyga Martin Odegaard halka ciyaartoyga McTominay isagu ka qayb qaadanayay barasharka oo uu raaciyay ciyaartoyda Anthony Sancho Rashford iyo Bruno Fernandes dhinaca kale haddaba haddii aynu soo noqonno waxyaabihii ka khaldanaa ama sidii aanay kooxda Arsenal aanay awood ugu weerartameen dhuunta garoonka ama inay kubadda khad dhexda ka gasho oo ay toos gool u aado iyadoon garbaha aadin ayaa ahayd sababtii ugu weyneyd inaanu ciyaartoyga Gabriel Jesus oo aanu ahayn ciyaartoy jooga booskiisa oo lambar 9 sax ah oo kubadda sugaya balse ciyaartoygan ayaa soo baxayay oo mar walba mar garabka midig aadayay mar khadka dhexe soo daadagay sidoo kale marka qaar garabka bidix aadayay haddaba arrinkaas oo ciyaartoygani soo baxayay Gabriel Jesus maadaama uu soo baxayo waxa uu soo saaray ciyaartoy kamid ah daafacyada kooxda Manchester United oo mar waxa soo raacay ciyaartoyga Lisandro Martinez marna waxa soo raacay Rafael Varane mararka qaar uu xoog u soo dhawaado ama khadka dhexe hoos ugu soo daadagan waxa la jooga ciyaartoyga McTominay haddaba haddaynu eegno xaalado kamid ah xaaladaha ama ciyaartoygan Gabriel Jesus sida uu soo baxayay oo aanay uga faa'iideysan ciyaartoyda kooxda Manchester United ciyaartoyda kooxda Arsenal hadda sawirkan sida ka muuqata waa xaalad kamid ah xaaladihii uu soo baxay ciyaartoyga Gabriel Jesus oo waa daqiiqadii 17aad ciyaartoyga Gabriel Jesus waxa uu soo daadagay inuu kubadda soo doonto oo waxa uu joogaa khadka dhexe mar walba ciyaartoygu soo daadago Gabriel Jesus waxa soo raaciyay mid kamid ah ciyaartoyda kooxda Manchester United oo hadda ciyaartoygan goobada casaanka ku jira waa Jesus waxa soo raacay ciyaartoyga goobada jaalada ku jirto Lisandro Martinez Gabriel Jesus waxa uu ku guuleystay inuu baneeyo booska ama masaaxada buluuga ah ee u dhaxaysa Malasia iyo Varane waxaana laga rabay kooxda Arsenal inuu ciyaartoyda Bukayo Saka ama ciyaartoyga Martin Odegaard inuu midkood booska buuxiyo oo uu ka faa'iideysto si kubadda loogu tuuro sidoo kale haddaynu eegno waxa jiray xaalado kale oo ciyaartoygana soo saaray ciyaartoyga Lisandro ama Varane oo hadda sida sawirkan ka muuqata daqiiqadu waa daqiiqadii 16aad mar kale ayuu dib u soo degay ama ciyaartoyga Jesus hoos u soo degay si uu kubadda u qabsado balse waxa soo raacay ciyaartoyga Rafael Varane oo ciyaartoygan goobada jaaladii ku jirto oo mar kalena lagama faa'iideysan meeshan ama booskan banaan ee uu soo baneeyay ciyaartoyga Jesus kaas oo u dhaxeeyay Lisandro Martinez iyo Diego Dalot waxyaabahaas waxay ka mid ahayd waxyaabihii aanay kooxda Arsenal gudaha uga weerartameen sidoo kale waxa jirtay mar kale inuu ciyaartoyga Gabriel Jesus oo hoos u soo degay ama uu yimaado khadka dhexe oo hadda sida sawirka ka muuqata waa daqiiqadii 45aad Gabriel Jesus xataa waxa uu soo gaaray ama waxa uu noqday inay ku kalifto inuu khadka dhexe ee kooxda Manchester United soo dhaafo oo yimaado khadka dhexe ee kooxda Arsenal oo sida sawirkan ka muuqata waa haafkii hore daqiiqadu waa 45 ciyaartoyga Gabriel Jesus ayaa ciyaartoygan goobada jaaladii ku jirto waxa uu soo daadagay haafka kooxdiisa si uu kubadda u qaato balse markan muu ku guuleysan inuu sameeyo space ama masaaxo kaas oo ay ka faa'iideysan karaan ciyaartoyda Gabriel Martinelli Bukayo Saka iyo Martin Odegaard waxaana hadda la jooga ama hadda taagan ama ciyaartoygan raacanaya ah ciyaartoyga goobada cadaanka ku jirto oo ah ciyaartoyga khadka dhexe uga ciyaaray kooxda Manchester United ee Scott McTominay dhinaca kale Mikel Arteta waxyaabihi ama afkaartii uu ku ciyaarayay qaybta hore waxa kamid ahayd inaanu barashar ama cadaadis aad u sareeyo ku qaadeen kooxda Manchester United oo 2 ilaa 3 ciyaartoy oo kamid ah ay ku qaadaan oo ciyaartoyda hadda sida sawirkan ka muuqata daqiiqadu waa 27 kooxda Manchester United ayaa kubadda haysata oo kubadda waxay ka soo bilaabayaan gadaal waxaana haysta goobada David De Gea halka ay sawirka ka muuqdaan 4 ciyaartoy oo kooxda Manchester United ah oo kala McTominay Dalot Varane iyo Lisandro balse kooxda Arsenal oo sameynaysa barashar fudud oo aan ahayn mid ay ciyaartoy badan wada qaadayaan oo 2 ciyaartoy kaliya ayaa qaaday kuwaas oo ah Gabriel Martinelli iyo Gabriel Jesus
ugu dambeyntii qaybtii dambe kulanka kooxda Arsenal ayaa dardar la soo gashay oo kooxda Arsenal 20 daqiiqo ama 15 daqiiqo ugu horeeyay ayay ku guuleysatay inay dhaliso goolkii bareejaha oo ciyaartoyga Martin Odegaard oo ahaa ciyaartoygii ka dambeeyay goolkaas oo kubad fiican u hormariyay ama ciyaartoyga Gabriel Jesus u baasay inta kadib uu boos qaadasho fiican sameeyay ciyaartoyga Bukayo Saka isaguna awoodey inuu gool ka dhaliyo oo xataa waxaa jirtay ciyaartoyga Martin Odegaard inuu sameeyay fursad qaybta hore ee kulanka taas oo badbaadiyay goolwada David De Gea oo kubadu karoosay ciyaartoyga Gabriel Martinelli oo madax ku dhuftay kadibna uu De Gea badbaadiyay dhinaca kale kooxda Manchester United ama ciyaartoydii ugu fiicneed oo kooxda Manchester United waxa marka ay inoo shaxdeeda waxa ku soo bilowday kulanka ciyaartoyga Anthony oo ahaa ciyaartoy ay soo iibsatay dhawaan kooxda Manchester United oo kulankiisu ugu horeeyay kooxda Manchester United u ciyaara haddaba tababare Ten Hag kulanka ka hor ayaa la weydiiyay ciyaartoyga Anthony oo ah ciyaartoy hadda uu yimaaday kooxda Manchester United ayaa ku soo bilowday waxaanu sheegay sidoo kale waxa la weydiiyay inaanu Casemiro sababta aan ugu soo bilaabin oo ciyaartoygan isagu maadaama uu ilaa 3 kulan hore joogay waxa uu ku jawaabay inuu ciyaartoyga Anthony uu yahay mid fahansan afkaarta aan ku ciyaarayo halka uu Casemiro u baahan yahay la qabsi oo ciyaartoyga Anthony ayaa arrinka garoonka ku soo bandhigay oo goolkii koobaad ciyaartoygii dhaliyay ayuu ahaa sidoo kale waxa uu sameeyay isku dheelitirnaan ah garabka midig ee kooxda Manchester United haddii ay noqoto daafacasho iyo haddii ay noqoto weerarkaba dhinaca kale ciyaartoyga Marcus Rashford oo kamid ah xidigii kulanka hadaan ahay xidigii kulanka oo labada gool dhaliyay sidoo kale goolka saddexaadna caawiyay ayay isaguna soo bandhigay kulan aad u fiican oo ciyaartoygan waa markii tababare Ten Hag sidoo horyaal ku bilaabay waa markii shanaad oo ciyaartoygan ka ciyaarsiyo lambar 9 aan jirin ama noobe been ah taas oo ciyaartoygan ku guuleystay oo saddexdii kulan ee ugu dambeeyay ciyaartoygan ama labadii kulan ee ugu dambeeyay ciyaartoyga Marcus Rashford kulanka Leicester City iyo kulankan hadda Arsenal waxa uu awooday inuu 2 gool dhaliyo 2 goolna caawiyo ugu dambeyntii kooxda Manchester United ayaa ku guuleysatay inay gaadho guushii afraad oo xidhiidh ah kadib markii kooxda laga badiyay labadii kulan ee ugu horeeyay oo kooxda Manchester United ayaa kalsooni sii qaadatay maadaama ay ka badisay laba kamid ah kooxihii ku jiray ama kooxaha kamid ah top 6 ka horyaalka Ingiriiska ama 6 kooxood ee ugu adag horyaalka Ingiriiska haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar subscribe na dheh channelka si aad